hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ka qayb galay kalfadhiga koowaad kulankiisa shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka codsaday in la ansixiyo lana dhaariyo xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo dhawaan oo magacaabay golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay wasiirada cusub iyadoona la dhaariyay xubnaha wasiirada oo uu dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Dr. Axmed Cali Muuse. xubnaha golaha wasiirada cusub ee la dhaariyay ayaa ballan qaaday inay si daacadnimo hufnaan iyo xilkasnimo u gudan doonaan waajibaadkooda ka saaran u adeegida shacabka iyo horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed. hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa u hambaliyay xubnaha cusub ee golaha wasiirada xilka loo igmaday isagoo ku booriyay in ay mudnaanta ay siiyaan dardargelinta adeegyada bulshada, adkeynta amniga, horumarinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo hirgelinta qorshayaasha horumarineed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. sidoo kale hogaamiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur ayaa xusay in golaha wasiirada cusub laga filayo wadajir, isla xisaabtan iyo hufnaan si loo xaqiijiyo himilooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo adeeg hufan oo shacabka la gaarsiiyo. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa u mahadceliyay guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed sida ay u ogolaadeen ansixinta xubnaha golaha wasiirada si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaalo xukuumadda.